waxaan sameeyay 3 fiidiyoo kaliya waxaan helay 24,000 oo views iyo 6.3 click rumaysan ma rumaysan waxa soo dhamay waxay ku xuleeyeen 40 shay fikrad thumbnail editing iyo cod hore ayaan uga soo hadalnay waxaan gaadhnay waqtigan bilaabi lahayn talaabada labaad. Remember, your thumbnail gets placed amongst dozens of other thumbnails. Thousands and thousands of YouTube thumbnails to see what's working right now. الفيديو ده هيفشل فشل ذريع تماما لو ما اهتمتش بالحاجه اللي هنتكلم عنها النهارده. waxaan u baahanahay inaan sameeyno thumbnail qurux badan dadka badankoodu waxay naga soo codsadeen sida loo sameeyo thumbnail qurux badan. fiidiyooga dhamaadkiisana waxaan ku sharaxi doonaa thumbnailkii codeynta ku guuleystay si aan u sameeyno thumbnail qurux badan. waxaan u baahanahay inaan raacno qaacidooyinkan intaanaan bilaabin fiidiyooga fadlan ugu soo biir oo subscribe noo saar waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabo fara badan. sidaan wada ognahay YouTube algorithm-ku waxa uu muuqaaladaada faafiyaa markaad hesho click badan iyo saacado badan oo daawasho ah. haddaba saad u hesho click badan waxaad u baahan tahay inaad thumbnailkaaga ka dhigto mid professional ah. waa inaad raacdaa qaacidooyinkan. design rule qaacidada ugu horeysa aad iyo aad ay u fududahay designkaaga foosho xumaaya ka dhigaysaa mid qurux badan. waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaacidada ah rule of 30s. qaacidadan waxay isticmaalaa YouTuberada waaweyn. ku sawir 4 laan sawirkaaga sidan oo kale. ma aragtay waxa dhacay YouTuberada oo dhami way isticmaalaan qaacidadan. xitaa anigu waxaan u isticmaalay thumbnailkayga. qaacidadu waxa ay leedahay shayada dhexdhig meelaha ay laynku iskaga tagaan. laynku waxay u qaybiyaan sawirkaaga 3 qaybood midig dhex iyo bidix. color muuqaalkan ka horeeyay waxaan kaga hadalay colorka dad badanna waa ay fahmi waayeen laakiin fikradu waxay tahay inaad hesho midabo isku soo baxaya. waa inaad doorataa midabada iska soo horjeeda sababtoo ah waa isku soo baxayaan saacasaanka iyo akhtarka buluuga iyo leeniga. laakiin hadaad ku sii xol dheeraato waxaad arkaysaa inay jiraan qaabab badan oo looga dhigi karo midabadaada kuwa isku soo baxaya. laakiin waxa ugu caansan kuwan hore u soo sheegnay. waxaa jira dariiqo kooban oo ku heli karto midabo ku haboon thumbnailkaaga. soo qaado kalarka jeceshahay inuu noqdo ugu weyn kadibna ku soo dar 3 kalar madow cawlaan iyo cadaan waxaana ku soo baxaya sidan. fartu waxay ka qayb qaadataa inuu thumbnailkaagu qurux badnaado. waa inaad isticmaashaa far adig ku gaar ah had iyo jeer aad ku samayso thumbnailkaaga. anigu waxaan adeegsadaa fartan. types of thumbnail waxaan ka soo hadalnay qaacidadii ahayd rule of 30s iyo sida midabada aad ku dooran lahayd. taasi way fududahay laakiin ma awoodin inaad ikhtiraacdo shay cusub oo ku saabsan thumbnailka fiidiyoo kasta oo sameynayso. haddaad u fiirsato markaad daawanayso YouTube-ka waxaad arkaysaa in nooc ka mid ah thumbnailka ay adeegsadaan YouTuberada badankoodu. waxaan kuu sheegi doonaa 4 nooc ugu caansan thumbnailka shocking ama la yaab. noocan thumbnailka ah waxay isticmaalaan had iyo jeer YouTuberada kala ah masterpiece iyo falla big numbers ama nambarada badan. had iyo jeer shayada waxa ay dadku siiyaan ahmiyad. tusaale ahaan dadku waxay isweydiinayaan guriga 50 milyan la siinayo sidoo ekaanaya iyo waxaan $900 ka sameeyay online anigoo dhageysanaya music. social hacking haddaad tahay YouTuber yar waa inaad isticmaashaa social hacking. waa habka ugu fudud ee ku soo jiidan karto daawadayaal. soo qaado qof caan ku ah waxa aad ka hadlayso kadibna thumbnailkaaga soo saaro waxaad heli doontaa click badan. isbarbardhigga isticmaal isbarbardhigga ka hor iyo kadib. tusaale ahaan shay jaban iyo shay qaali ah iPhone iyo Android bini'aadaniye isticmaal blurry thumbnail qarinta qof gaar ah ama natiijada ugu dambaysa. dadku waxay isweydiinayaan natiijada ama qofka kadibna way ku dhufanayaan. waxaan 5 cisho ka hor soo gelinay codeyn aad u codeynaysaan thumbnailkan ka soo hadlo fiidiyooga kan xiga. waxaa codeynta codeeyay 375 qof 460 qofna waxay u codeeyeen thumbnailka ah saa loo duubo cod fasiix ah. bal han isla eegno. waxaan ku sameynayaa thumbnailka application-ka loo yaqaano PSCC. waxaadna kala soo degtaa dhinaca description-ka isaga iyo elementyada aan isticmaalay oo dhan. application-ka ayaad soo furaysaa halka yar ee balasta ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa in ku calaamadin doono. kadibna waxaad sii tegaysaa blank document. halka 2400 ayaad ka dhigi doontaa 1920. halka kalena 1080 ka caadi iskaga dhigi doontaa. halka waxaad ku haysataa framekii thumbnailka. waxaad u baahan tahay inaad tagto meesha balasta ah kadibna aad ka sii tagto photo layer photo library. waxaadna sii dooranaysaa folderkii aad ku soo save gareysatay elementyada ku soo dhigay dhinaca description-ka. waxaad sii dooran doontaa background-ka ayaad leekaysiinaysaa framekii thumbnailka kadib waxaad ku dhufanaysaa saxda. kadib meesha ayaad ku noqon doontaa plasti photo layer photo library. waxaad ka sii dooran doontaa garaafka ayaad leekaysiin doontaa frameka thumbnailka kadibna tigta ayaad saari doontaa. kadibna meesha ayaad ku noqon doontaa waxaadna soo qaadan doontaa kursiga ayaad weyneyn doontaa waxaadna soo agdhigi doontaa garaafka agtiisa. saxda ayaad taabsanaysaa kadibna meesha ayaad ku noqon doontaa waxaadna ka soo dooranaysaa mikrofoonka ayaad soo ballaarinaysaa waxaadna duldhigaysaa kursiga dushiisa.
kadibna meesha ayaad ku noqon doontaa waxaadna soo qaadan doontaa lacagtii ayaad ag dhigaysaa mikrofoonka kadibna tig ayaad saaraysaa kadibna lacagtii labaad ayaad soo dooran doontaa waxaadna ag dhigi doontaa iyagana mikrofoonka kadibna meesha ayaad ku noqon doontaa waxaadna soo qaadan doontaa fallaarihii yaraa fallaadha waad yareyn doontaa jira qalloocin doontaa dhinaca uu garaafku u jeedo kadibna waxaad ag dhigi doontaa mikrofoonka agteeda fallaadhu waxa ay leedahay background si aad backgroundka uga saarto waxaad ku dhufan doontaa meeshaan ku calaamadin doono halkan normalka ah ayaad ka dhigi doontaa screen sidaa ayaa uga baxay backgroundkii kadibna meesha ayaad ku noqon doontaa waxaadna soo qaadan doontaa loogada youtube-ka kadib tig ayaad saari doontaa youtube-ka ayaad yareyn doontaa waxaad ag dhigi doontaa garaafka agtiisa kadib isaguna background ayaa uu leeyahay waxaad kusii dhufan doontaa halkaan ku calaamadiyay kadibna normalize kadibna screen halkaa waxaan ku haysanaa elementiyadii waxaana inaga dhiman oo kaliya qoraalkii qoraalka waxaad u baahan tahay inaad soo qorato waxaadna ku soo qoran doontaa applicationka loo yaqaano Pixellab applicationka Pixellab ayaa soo furan doontaa waxaadna ku dhufanaysaa halkaa yar text ayaad kusii dhufanaysaa waxaadna ku qoranaysaa saa loo duubo cod fasiixa ama aad waxaad ka hadlaysid waxaadna kasii dooranaysaa farta aan descriptionka kugu soo dhigi doono kadibna waxaad ku dhufan doontaa fartaas kadib halkaa ayaad kusii dhufan doontaa transparent ayaad ka dhigi doontaa backgroundka ka saaraysaa saas ayaad ku save garaysan doontaa kadib waxaan kusoo noqonaa applicationkii PSCC plus ayaan kasii dooranayna photo layer ayaan kasii dooranayna waxaana kusii dhufanaynaa photo library waxaan dooran doonaa xariijinta linka akhtarka waxaadna dhigi doontaa mikrofoonka dushiisa kadibna waxaad soo qaadan doontaa fartii aan kusoo samaysanay Pixellabta oo waxaad dul dhigi doontaa xariijintii sidaa waxaan ku haysanaa thumbnailkii sida loo sameeyo cod fasiix ah oo dhammaystiran haddaba haddaad isweydiinaysid thumbnailkaaga markaad youtube-ka soo dhigtid sidee buu noqon doonaa waxaad soo furan doontaa Google Chrome-ka waxaanad ku qori doontaa Sambis App TV waxaad kasii dooran doontaa website-ka ugu horeeya halkaa ayaad gelin doontaa thumbnailkaagii aad hadda soo samaysanay halka hoosena waxaan ku qori doonaa title-kii tusaale ahaan sida loo duubo cod fasiix ah kadibna hoos ayaad u daadegi doontaa waxaadna ku arki doontaa thumbnailkaagii suu soo baxay dad halkan soo gaadhay aad iyo aad ay u mahadsan tahay fiidiyoga kan xigan waxaan kasoo samayn doonaa su'aalaha isweydiinaysaan oo idinka jawaabo fadlan haddaad su'aal qabtid dhinaca commentiga noogu reeb wassalaamu calaykum